wadamada adduunka ugu nolosha qaalisan ama santa wadan ee dunida ugu nolosha qaalisan waa New York ayaa kaalinta koobaad gashay magaalooyinka ugu nolosha qaalisan dunida marka loo eego dadka soo galootiga ah ee soo booqda qiimaha ay ugu kacdo kaalintaas oo ay hore ugu jirto 4 sano ah Hong Kong shirkadda international oo soo saarata xog ururinta magaalooyinka ugu nolosha qaalisan ayaa waxa ay qiimeynta ku eegaysaa dhowr meelood oo ay ka mid tahay waxyaabaha daruuriga ah ee maalintii la isticmaalo gaadiidka dadweynaha kharashka qofka kaga baxa Hong Kong kaalinta koobaad haysatay ayaa la sheegaya in ay hadda kaalintaasi ay hoos ugu dhacday taas oo ay sabab u tahay nolosha oo hadda tabaysa dhinaca kharashaadka oo raqiis noqday iyo waxyaabo badan oo sixir bararku ishaameen jiray oo hadda isdhimay warbixintan ayaa ku dartay in kasto ay jirto sare u kac wali laga dareemayo qiimaha daruuriga magaalada hase ahaatee waxa la sheegaya in deegaanashiyaha magaalada iyo waxyaabo kale ay hoos u dhac ku yimi hadaba dalka Australia waa in uu joogaa 24 bilood si uu u helo sharciyada joogitaanka ku meel gaarka ah muddadaasna waxa lagu xidhaa in uu barto luqadda Jarmalka iyo nolosha dhaqanka ee Australia halka dhalashada joogitada ah ay tahay in qofku uu dalka ku noolaado 15 ilaa 30 sanadood ka hor inta aan sharciyada muwaadinimada la siin Jarmalka in aad hesho deganaanshiyaha rasmiga ah ee Jarmalka waa mid aad u adag ilaa oo aad tahay muwaadin ka mid ah wadamada Yurub oo kale mooyaane kirada guryaha ayaa la sheegaya in hoos u dhac ku yimi markii ugu horeysay muddo 5 sano ah magaalada Hong Kong sidaas iyo si lamid ah waxa ay warbixintu xustay inuu sarakac ku yimi nolosha magaalooyinka Mareykanka iyadoo oo New York ay kaalinta koobaad soo ay sabab u tahay qiimaha dollarka uu leeyahay iyo waliba qiimaha kirada guryaha oo kor u kacay waxa sidoo kale booska toddobaad soo galaysa magaalada Francisco oo iyaduna Mareykanka ku taala haddaba waa kuwan shanta magaalo ee ugu nolosha qaalisan adduunka New York oo Mareykanka Hong Kong oo Japan ah Geneva Switzerland London UK iyo Singapore hagaaga daawadayaal halka waxa inoogu dhamaaday barnaamijkii aynu ku eegaynay wadamada dunida ugu nolosha qaalisan barnaamijka halkaas kala socotay bartada YouTube-ka kulana Bilan Live News waxa warbixintaas idin la socodsiinayay Abdisamad Yuusuf tan iyo inta mar kale wada ku kulmino waxaan idinkaga tagaynaa subscribe-ta iyo share-ba inaad si tidhaahdaan